quraanku marka nabi Muhammad ku soo degay salawaatullaahi wa salaamu alayhi 14 qarni ka hor ayaa waxa uu qorayaa masaa'il basharku dhawaan uu ogaaday kadib laabkan iyo mijharkan ama microscope-da tan iyo qalabkan wax lagu baadho scientifically markay koreen wax hadda la gartay ayuu quraanku wuxuu ka warramayaa 14 qarni ka hor taasi bay culimadu leeyihiin waxay daliil cad u tahay inuu waxa kan yahay waxyi ku soo degay nabi Muhammad ee aanu ahayn nabi Muhammad iyo casrigiisii wax la ogaan karayayba idan waa nooc ka mid ah mucjisaadka quraanka sida ogeed ayaa مثلا رابط العالم الإسلامي هيئة بيلاده لا يراده هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة إعجاز كعلمي يا قرآنك يا السنة كصابسان scientific مثلا شيخ زنداني markuu madaxda ka ahaan jiray hay'adaasi waxay sameeyeen buxuus aad u tiro badan leh waxa jirta 14 nin oo khubarada dunida ee la tilmaamo ah oo cid waliba fanni gaar ah khabiir ku tahay ayay dooda la galeen 14 kan nin doodahay la galeen waxay u samaysanayd su'aalo la weydiinayo مثلا todobada nin ee cilmi laajina dunida ugu khubaraysan looga dambeeyo todoba nin bay jiray oo ay markaa ku tilmaamayeen inay yihiin science-ka embryology iyo waxa ku saabsiisan cidda loogaba dambeeyo dunida waxa kamid aha ururka science-ka qaybtaasi ee North America oo dhan ninka haysta Canadian-ka Keith Moore la yiraahdo Keith Moore wuxuu leeyahay book Human Development ama Human Embryology buugiisan la yiraahdo sideed luqad ku qorayay mostly jaamacaadka dunida waa buuga oo ah reference buuga qaybtaasi ah ee loo isticmaalaba waa ninkay ku tilmaamaan abu cilmi la jinna fi Canada aabaha cilmiga janiinka qadiyada tan markaan bilaabay buu Zandani leeyahay waxaan arkay buu yiri anigoo mas'aladan baxtinaya ayaan 14 film oo ku saabsiisan ilmaha uurka sidoo u koro oo 14 kaba la leeyahay waxa taxqiijiyay ninkan baan arkay dabeetana nin caalim oo faniga kan aanu imo waxaan ku yiri buu yiri war ninkan Keith Moore kan muxuu yahay meel walba uu ku qoran Keith Moore wuxuu yiri ninkan ma aqoonin ninkani waa abu cilmi la jinna cilmiga ka nooca kana waa ninka ka aaba dunida ugu dambayso xagu jooga baan ku yiri buu yiri waxa la igu yiri buu yiri jaamacadda Toronto ku taala ayuu jooga ma la xidhiidhi karayaa ninkii baan xidhiidh la sameeynay buu yiri anaa xidhiidhka la sameeynay waxaan idhi waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiino welcome buu yiri kaalaya 8 su'aalood bay weydiiyeen oo soo qorteen 8kii markuu uga jawaabay ay yiraahdeen 8ka jawaabood quraanka iyo xadiiskan ku haysanay waxaan macquul ma ku hadlaysaa waxay yiraahdeen 8ka mas'alo adigu aad leedahay dhawaan baa la wada ogaaday ama goortan baa la xaqiijiyay ama aynkan baa la xaqiijiyay intaba waxay ku qoran tahay nusuus iska caadi iyo xadiiskii nabiga iyo aayaadka quraaniga bay ku taala masaladii markii loo sharxay ee uu arkay nusuusta balyiri tusa ee nusuustii arkay ayuu wuxuu jeediyay 3 muhaadaro ku saabsan human embryology iyo quraanka isaga jeedinaya markaas Zandani waxaan ku yiri buu yiri maadaama buugaagu yahay reference buugii dunida ay waxa kanu isticmaalaysay markaad qaybta taariikhda ka waramayso ee muqaddamada buugaaga waxaad qortay cilmu laajina waqtiga hore inaan waxba badan laga garanaynin ilaa iyo markii la helay mooyaane electronic microscope kan electronic ee weyn markii la helay mooyaane markii hore inaan waxba laga ogeyn baad qortay oo medieval period kii ahdiyadii madooba inay tahay taariikhdaasina sax ma aha anaga ku sheegnay wax laga ogaayo mid wax ka bedeshay soo qorbo ilaana ku qorayay waan soo siyaaqay buu yiri taariikhda hore in wax laga ogaayo sida wax loo sheegay inaanay hayna wax badan in laga ogaa intii baan soo qoray waan u keenay buu yiri dabeetana page buu ku daray buu yiri kitaabkiisa uu kaga warramayo taariikhda caynkan markii dabaano ima waxaan ku yiri buu yiri ma suurtagal tahay in طبعات كدبه بوغاغا كان
chapter kasto aad ka hadashay quraan iyo xadiiska wixii ay ka sheegeen inaad ku darto soo qora buu yidhi zandani baa wuxuu leeyahay aniga iyo sheekh ibn baaz iyo qoladaas ay isugu tagay waa qoray dabeetana waa la soo qaaday wuxuu ku daabacay kitaabkiisii Soomaaliya markii 88kii la qaxayay buu iga lumay buuggaas oo tabacadii oo ku taalo nusuus walba oo chapter kasta oo kamida buugu marka uu qoran yahay ayaa hoostiisa waxa ku qoran aayaadkii axaadiistii ku soo aroray iyo sida loo define garanayo ama sida loo sharxayo 14 nin oo culimada waaweyn oo kala takhasusaad ay la kulmeen Keith Moore kaasi uu kamid yahay Kroner meel la oran jiray odagii geologiga jarmalka ahaa uu kamid yahay kii cilmi al-bahaarka Mareykanka ahaa niman kala gadisan wuxuu ka duubay markii dambe musalsal TV oo la yiraahdo innahu al-haq baad heli kartaan isagoo kitaabana waxa soo saartay hay'a al-i'jaz al-ilmi في القرآن والسنة رابط العالم الإسلامي سجال بوك بيلين سجال بوك وكور رمية مسائل كاسي الإعجاز العلمي في القرآن وبوك استاي واحد قارك كور رمية يعني قضايات كان مركي أفريقيا طبعا كان مركو ضد الله صمين يا شيخ الزنداني يا علماء الله سعوته قاروا يا شهادتين مارشال جونسون اللي يرادون مريكاني waxaan markaan u yeedhnay ayaan su'aal weydiinay buu markuu ka jawaabay ayaan nidhi waxaan quraanka ka warramay intuu istaagay buu yiri nonsense isagoo la istaagay buu yiri markaasaan nidhi buu fariiso waa buu fariisan waayay buu cadhooday haddii anaga istaagayna baan ku nidhi buu yiri waan isla taagnay anana taagnidan kugu akhriyayna waxaad nonsense iska leedahay baan ku nidhi buu yiri dabeetana waan u sharaxnaa akhrinay buu yiri markaasoo aamusa Marshall Johnson kan intaan la hadlin buu yiri Keith Moore baan waxaan ku nidhi buu yiri mas'aladan isay kula tahay wuxuu yiri waxa ila tahay culimada sayniska buu yiri qaarna waa ahraar oo fikradooda hadlaan qaarna wax kale ka baqaaniyo wax kale xeerinayaan dadka ahraarta ah oo dhan waa aqbali doonaa buu nagu yiri mas'aladiina tan markaasaan ku nidhi buu yiri iyada ahraarta u maraynaysa mas'alada taraaqbaan muu sharxi karnaa u taga buu yiri Marshall Johnson waa Johnson kan ka cayeelay nonsense Johnson kama kan oo sharaxnay buu yiri ka waranay qadiyada tan iyo quraanka iyo xadiisku sidoo uu tilmaamay ayuu xiriiriyay markii dambe arintan ay sheegaysaan maxay kula taybaan ku nidhi waa saddex midun buu yiri haye saddexda midku xagaad ku haysaa wuxuu yiri Muhammad inuu mijhar haystay waxaan wax lagu eego microscope inuu agtiisa yaalay waxaan ku nidhi buu yiri xadaaradu waa wada socotaa waqtigaasi carabtu waxay ahayd dad aan waxba haysanin quraankan laftiisa markay qorayeen wax kale ay ku qoraan way waayeen lafa iyo caleemo iyo harag dushii baa lagu qortay buu yiri ninka quraankiisii ugu sareeyay waa haystay ba harag dushii ku qortay miyaa microscope haystay baan ku nidhi buu yiri ilaa maadadii dhameeyay la ilaalinayay ba wixii adawaadkii lagu ilaaliyo lagu qoray waxay noqotay baan